ma doonaysaa inaad gaartid xorriyad dhaqaale ama waxa loo yaqaano financial freedom? ma rabtaa inaad yeelatid maskax milyaneer taqaana sida dhaqaalaha loo abuuro faqrigana looga baxo? ma rabtaa inaad weligaa aadan shaqo tegin lacagtaada lacag kuu dhasho adiga xaajiyadaadana ay ku wadato gawaariga korontada ku shaqeeya ee Tesla? haddii aad necab tahay inaad ku noolaato meel daseerta ah biyo aan lahayn faqriguna hareeyay cagaha geedahana ka tabcaanka ka yihiin walkani waxay ku baraynaa sida dhaqaalaha lagu sameyn lahaa. haddii aad tahay nin yaxyaxaya, haddii aad tahay gabar yaxyaxaysa necab faqriga iyo gaajada iyo macaluusha indhaxumada iyo weliba ilmaha yaryar aad u faqriyay, haddii aad tahay qof maskaxdeeda mar walba ay ka buuxaan barwaaqo dhaqaale iyo wanaag, haddii aan rabin ubadkiina inay ku noolaadaan meelaha uskaga iyo qashinqubka, haddii aadan jeclayn cunugaaga asagoo nool inuusan doqsiga cuno, haddii aad jeceshahay ilmahaaga inay iskool fiican ku aadaan, nadaafad fiican ku yeeshaan, wanaag badan ku sameeyaan, waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay waxa aad maanta samayso. dhaqaale inaad abuurto, dhaqaalena kasbato, maskax taqaana sida malaayiin lagu noqdo xorriyad lagu gaarina aad raacdid. haddii aad rabi lahayd inaad ku noolaato guryo waaweyn oo xeebta ku yaala oo villa ah, barwaaqadaasita waxaa lagu gaaraa dadaal. dadaalkaasi waxaan ku baraynaa sidii aad ku kasban lahayd oo aad ku yeelan lahayd dhaqaale. haddii aad necab tahay jeebka maran, haddii aad necab tahay faqriga ku hareeyay, haddii aad mar walba asxaabtaada lacag ku weydiiso aad tiraahdo ma hayo oo mar walba jeebka gacanta geliso jeebkaagu faaruq yahay, haddaba waxaan ku haynaa daawada lagu daaweyn lahaa jeebka maran. waxaan ku baraynaa sida dhaqaale lagu kasbado. haddii waladkaagu mar walba faaruq yahay, hadduu waladkaagu mar walba ay baraanbarada cunayso, waanu kaa saaraynaa janalkan ku xirnow barwaaqada iyo maskaxda milyaneerkan ku baraynaa iyo sida lacag aad ku samayn lahayd. haddaba janalkan waxa uu dadka bari doonaa barwaaqo, horumar iyo sidii milyaneer lagu noqon lahaa ee lagu gaari lahaa xornimada shaqada looga xoroobayo. ha moogaanin janalkan. please like, subscribe and share your friends and family sidii ay ku gaaraan horumar dhaqaale loona baro inay hanti abuurtaan, maskaxdoodana ay noqoto maskax mar walba ka buuxda barwaaqo, horumar iyo wanaag. thank you.